الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV caawa idin haya waxa kamida madaxweyne farmaajo oo markii ugu horeysay ka hadlay fashilkii ku yimid shirki Garowe agaasimo cusub oo loo magacaabay madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne farmaajo oo si kaftana u weeraray madaxweyne xaaf booliiska Soomaaliya oo gacanta ku dhigan nin reer galmudug ah oo bixiyay qashki imtixaanaadka dugsiyada sare wararka dibadda wararka TV caawa idin haya waxa kamida gabar isdishay kadib markii taageerayaasheeda Instagram-ka ay ku dhiirageliyeen iyo nin si aqliyaysan ula baxay gaari qaali ah dalka Jarmalka daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shirkii natiijo la'aanta ku dhamaaday ee Garowe ku dhaxmaray madaxda dawladda iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada madaxweyne Farmaajo oo xalay ka hadlay munaasabadda 15 May oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay fashilka ku yimid shirkii hogaamiyaasha dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Garowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland madaxweyne Farmaajo ayaa soo hadal qaaday qodobo ay isku mari waayeen madaxda dawladda iyo hogaamiyaasha gobolada madaxweynuhu waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda ay soo jeediyeen in sharka muhiimadda lagu saaro arrimaha amniga laakiin waxa uu sheegay in hogaamiyaasha gobolada qaarkood ay ka hor yimaadeen arrintaasi iyagoo soo jeediyay in shirka diiradda lagu saaro arrimaha siyaasadda oo ay ku kala aragti duwanaayeen hogaamiyaasha gobolada iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in aan fashil lagu tilmaami karin shirka maadaama sida uu hadalka u dhigay ay wada fariisteen madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo aan wax fadhiya yeelan muddo ku dhow hal sano sida uu hadalka u yiri waxaana madaxweyne Farmaajo uu ku eedeeyay hogaamiyaasha gobolada inay doonayaan sameynta madal aan sharci ahayn isagoo xusay in hore loo soo arkay madal waxa ay tahay sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xusay in maamul goboleedyada ay doonayaan in gacanta loo guriyo shuruucda doorashooyinka dalka oo iminka hor yaala baarlamaanka isla markaana uu marayo wado sharci ah laakiin hogaamiyaasha gobolada ay doonayaan in nidaamka doorashooyinka dalka iyaga gacanta loo geliyo madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu tilmaamay inay doonayaan inay sameeyaan dhaqan ka duwan dhaqankii horey loo yaqaanay oo ah in shacabka ay dib ugu celiyaan awoodda oo iyagu ay wax soo doortaan halka dad tiro yar ay wax u soo xuli jireen lana cabaarayn jiray madaxweyne Farmaajo waxa uu meesha ka saaray arrinta muddo kororsiga wuxuuna xusay in hal maalin cidna aan wax loogu dareynin isla markaana dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada aanu midna wax ku darsanaynin sida uu hadalka u dhigay waxaana madaxweyne Farmaajo uu tilmaamay in ay tahay arrin aan wanaagsanayn muddo kororsi wuxuuna tilmaamay in dalka ay ka dhacayso doorasho waqtigeeda ku dhacda hadalka madaxweyne Farmaajo ayaa loo arkay mid uu ku doonayo in uu kalsoonida shacabka ku hanto isla markaana hogaamiyaasha dawlad goboleedyada bulshada uu tuso kuwaasoo sharci darro doonayo kana shaqaynaya dana gaar ah isagoo inta uu la hadlayay shacabka dhowr jeer ku celceliyay in uu ka shaqayn doono danaha dalka iyo dadka ee uusan lahayn dana gaar ah una baahan yahay kalsoonida shacabka iyo garab istaagooda agaasimo cusub ayaa loo magacaabay shalay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya haddaba imise agaasime ayaa yeelatay madaxtooyada Villa Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay madaxtooyada Soomaaliya ayaa labadii sano ee la soo dhaafay ahayd meel aan lagu nagaanin marba agaasime la bedelayay intuu xafiiska joogo madaxweyne Farmaajo oo madaxtooyada la wareegay 16 bishii Febraayo 8 cisho kadib markii loo doortay xilka madaxweynaha ayaa magacaabay 4 agaasimo oo rasmi ah iyo hal agaasimo oo ku meel gaar ah madaxtooyada Villa Soomaaliya oo halka looga arrimiyo dalka waxaa xilkeeda lagu miisaamaa marba cidda talada qabata gaar ahaan madaxweynihii yimaada waxa uu magacaabaa rag u dhow ama saaxiib la ah marka la eego madaxdii hore ee dalka soo martay madaxweyne Farmaajo ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Villa Soomaaliya fariista oo ilaa 4 agaasimo magacaaba madaxweynihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed ayaa 3 agaasimo u soo magacaabay madaxtooyada halka madaxweynihii ku xigay Xasan Sheekh Maxamuud uu soo magacaabay 2 agaasimo oo rasmi ah haddaba waxa qiimeyn ku sameyn doona labadii sano ee uu madaxweyne Farmaajo xafiiska joogay iyo tirada agaasimayaasha soo maray xafiiska Dr. Saciid Cali Fiqi ayaa si ku meel gaar ah xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada loogu magacaabay markii uu madaxweyne Farmaajo la wareegay Villa Soomaaliya 2 Abuukar Daahir Cismaan oo loo yaqaan Abuukar Baale ayaa xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada loo magacaabay 22 Maaj sanadii 2017 3 Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaa xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada loo magacaabay 31 May sanadkii 2017 4
Ditoreysa Aamina Saciid Cali oo agaasimo ku-xigeen ka ahayd xarunta madaxtooyada ayaa u dalacday xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada 22 Agoosto sanadkii 2018 9 bilood oo kaliya ayaa haysay xilka agaasimaha madaxtooyada ee Soomaaliya. 5 Dr. Nuur Diiriye Fursade oo madaxweynaha saaxiib dhow ay yihiin xidid hoosena ka yihiin dhanka xaasaska ayaa loo magacaabay xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada shalay oo ay taariikhda ku beegneed 15 May sanadka 2019. xilka agaasinka madaxtooyada ayaa noqday xil wasaarad taliyayaal ciidan gobol oo tiro dhowr jeer la bedelay waxa uuna ka mid yahay xilalka aan lagu raagin iyadoo ka aragti duwanaansho siyaasadeed ee u dhaxayso madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaanka maamulka Galmudug ayaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa si kaftan ah uu u weeraray madaxweynaha Galmudug Axmed Geele Ducaale Xaaf. madaxweyne Farmaajo oo hadal ka jeedinaya munaasabad lagu maamuusay 15 May oo ka dhacday xarunta ciidamada booliiska ayaa ka hadlay xaaladda Galmudug. madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in arrinta Galmudug dhowr jeer looga hadlay shirkii Garowe ee dhex maray hogaamiyaasha dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada waxaana madaxweyne Farmaajo uu sheegay inuu soo jeediyay in la qabto shir dib u heshiisiin oo dadka reer Galmudug ay yeeshaan uu aqbalay madaxweyne Xaaf balse markii uu tashi geliyay uu la soo noqday in arrintaasi uu diiday. madaxweyne Farmaajo ayaa ku kaftamay in xaaladda ka jirta Galmudug ay la mid tahay sida qof xanuunsan oo loo baahan yahay 3 marxaladood in uu maro. marxaladda koowaad ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu ku sheegay in marka hore qofka xanuunsan uu isbitaal tago lana ogaado xaalkiisa in la baaro kadibna daawo la siiyo balse madaxweyne Farmaajo waxa uu ku kaftamay in daawadii uu diiday madaxweyne Xaaf. ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay nin reer Galmudug oo ka shaqeynaya wasaaradda waxbarashada oo bixiyay qashkii imtixaanaadka dugsiyada sare oo dhawaan joojisay dawladda federaalka ee Soomaaliya. maamulka Galmudug ayaa noqday halkii laga bixiyay imtixaanka shahaadiga ah ee dawladda ka oo la joojiyay markii uu socday muddo 3 maalmood ah. booliiska Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in bixinta imtixaanka dawladda ee dugsiyada sare loo xiray shakhsi ka tirsan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo lagu magacaabo Jamaaludiin Xasan Xirsi iyadoo baaritaan lagu hayo dad kale oo kiiskaasi ku lug leh. xogta la helay ayaa waxa ay sheegaysaa in imtixaanka dawladda laga bixiyay degmada Balambal ee gobolka Galgaduud oo ka mid ah deegaanada ay maamulaan maamulka Galmudug iyadoo ninkan oo 29 sano jir ah loo qabtay falkaasi lana sheegay in uu muddo ka shaqeynayay xafiiska imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Jamaaludiin ayaa ka mid ahaa saraakiisha kormeerayaasha imtixaanka dawladda waxaana haatan gacanta ku dhigay ciidamada booliiska oo wada baaritaanka imtixaanka la xaday oo wasiirka waxbarashada uu sheegay in si ula kac ah falkaasi loo sameeyay lacagna lagu kala iibsaday. wararka dibadda wararka TV caawa idin hayana daawadayaal waxa ka mid ah gabar 16 jir ah ayaa isdishay kadib markii taageerayaasheeda Instagram-ka ay ku dhiirigeliyeen in isdisho. gabadhan 16 sano jirka ah ayaa isku dishay dalka Malaysia kadib markii 69% oo kamid ah taageerayaasheeda barta Instagram-ka ay ku dhiirigeliyeen in isdisho. booliiska gobolka Sarawak ee bariga Malaysia ayaa sheegay in gabadhan oo aan magaceeda la shaacin ay sawirro iyo fariin dhigtay barteeda Instagram-ka ka oo ay ku dul qortay oraah ahayd aad ayay muhiim u tahay inaad ii kala doortaan inaan noolaado iyo inaan isdilo. markaasi kadib taageerayaasheeda ayaa u batay dhanka ah inay isdisho kadibna way isdishay gabadhii 16 jirka ahayd. qareen u hadlay gabadha ayaa sheegay in dadka ka qayb qaatay codeynta ay ku dhiirigeliyeen gabadha inay isdisho ayna mas'uul ka yihiin dhimashadeeda. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka Malaysia Sayid Sadiq Sayid Abdiraxmaan ayaa warbaahinta u sheegay in masiibadan ay cadeynayso heerka uu dalku ka marayo marka la eego xanuunka dhimirka. nin ayaa si aqliyaysan oo la baxsaday gaari malaayiin dollar ku fadhiya wadanka Jarmalka. nin fursad raadis ah ayay u suurta gashay inuu la baxsado gaari Ferrari ah oo qiimihiisa lagu sheegay 2.2 milyan oo dollarka Mareykanka. ninkan laga shakisan yahay ayaa iska dhigay inuu doonayo gadashada gaari noociisu uu yahay 1985 Ferrari 288 G2O sida ay sheegeen booliiska magaalada Düsseldorf ee wadanka Jarmalka. ninka sida aqliyaysan ku xaday gaariga oo hadda ay raadinayaan ciidamada booliiska ayaa waxa la ogaaday in markii uu yimid goobta lagu iibiyo gaadiidka fursad loo siiyay in uu soo tijaabiyo gaariga si uu u gato laakiin waa uu la baxsaday. baabuurkan la xaday ayaa qiimo ka badan 3 milyan oo dollar ka jooga dalka Mareykanka
waxaana baabuurtan lagu sameeyaa suuqyo gaar ah oo lagu talagalay in lagu sameeyo baabuurta qaaliga. gaariga uu ninka la baxsaday ayaa si weyn looga daneeyaa tartanka baabuurta adduunka, waxaana laga helay goob baabuurta lagu hagaajiyo oo ku taalla magaalo lagu magacaabo Grevenbroich oo aan sidaa uga fogeyn meesha laga xaday baabuurka markii booliiska ay dadweynaha ku wargeliyeen dhacdadan. booliiska Jarmalka ayaa baahiyay sawirka nin la sheegay in uu joogay goobta markii lala baxsanayay gaariga. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad kala socoteen wararka TV caawa waa naga inta.